kulankan ayaa ahaa mid lagu soo dhaweynayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Siraaji Sheekh Isxaaq Cabdulle. Kulankan casho sharafta ahi waxaa soo qaban qaabiyay siyaasiyiin iyo ganacsatada ka soo jeeda Hirshabelle, waxaana ka soo qayb galay xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, wasiiro ka tirsan dowladda Federaalka Soomaaliya, qaar ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabelle, aqoon-yahano, odayaal, dhalinyaro, haween iyo musharax xildhibaan golaha shacabka Cabdikariin Maxamuud Maxamed Bariire. Ugu horeyntii waxaa kulankan ka hadlay musharax Cabdikariin Bariire. xafladda tan waxaa ka soo qayb galay wufuud heer sare ah iyo dad madax xildhibaano labada aqal iyo xildhibaanada goboleedyada, sidoo kale diblomaasiyiin iyo marti sharaf kale. xafladani waxa weeyaan haddii ilaahay yidhaahdo waxay noqon doontaa xaflad lagu soo dhaweeyo gudoomiyaha saan hore u sheegay, sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle asna sanad baan hawada u marinaynaa Mudane Cali Gudlaawe iyo wadaadka madaxweynaha federaalka. xafladda waxaa soo qaban qaabiyay qaar ka mid ah ganacsato iyo waliba siyaasiyiin ka soo jeeda dowlad goboleedka Hirshabelle. waxaan idinkaga mahad celinaynaa haddii ilaahay yiraahdo soo daahitaanka ama mataqaanaa waxyaabihii aad mudnaanta aad lahaydeen haddii aad la aragteen naga raali ahaataan. waxaan jeclaan lahayn insha Allah taala inaan sidaan si ka sii fiican idin agaasin. dhanka kale qaar ka mid ah wasiirada dowladda Federaalka Soomaaliya ee xildhibaanada aqalka sare oo ka hadlay munaasabadda ayaa dhankooda soo dhaweeyay gudoomiyaha iyagoo hambaliyo iyo bogaadin u soo jeediyay. Siraaji hambaliyan ku leeyahay soo dhawow, ilaahay ku garab galo. waxa aad qaaday waa xil culus, laakiinse taariikhda ku sheegaysa intaad soo martay waxaad qabanaysa sida ku cad boorkan ku dhagan oo noo dhex fadhiyo. dhammaanteen waxaan wada jeclaysanay oo diyaar u nahay soo dhaweynta gudoomiye ku-xigeenka koowaad baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Siraaji oo maalmaha shaqo u joogay caasimadda dalka Muqdisho inaan caawa ku soo dhaweyno. si gaar ah guddigii noo soo qaban qaabiyay munaasabadan ayaan uga mahad celinayaa. dhammaanteen mudane gudoomiye waxaan ku leenahay soo dhawow. waxay la tahay hadalka qiimihiisa iyo nuxurkiisa waxaa dhameeyay xildhibaanadii sanataradii walaalaha ee iga horeeyay. waxaan ku biirinayaa inaan farxadda iyo soo dhaweynta la wadaago walaalkayga Siraaji Sheekh Isxaaq Cabdulle. marka ugu horeysana inaan ugu hambalyeeno kuna dhiirigelino kuna garab istaagno mas'uuliyadda maanta uu qabtay ummadan muxuu ahaa deegaan ahaan iyo dad ahaanba dib u dhac weyn uu ka jiro xagga bulshada iyo xagga siyaasadda iyo xagga amnigaba. ujeedka loo doortayna oo 99 xildhibaan codkoodii ee u siiyeenna ujeedka wuxuu ahaa wixii hore u jiray in wax ka duwan, ka qurux badan, ka horumarsan, ka wanaagsan, ka bisayd inuu waxa weeyaan gaarsiiyo. bulsho sideeda waxaa lagu dhisaa inay marka ugu horeyso hesho hoggaan, laba inay hesho qorshe, saddex inay hesho mashruuc dadka loo sheego si mashruucaas ay u taageeraan. intaba waxay la tahay khibradda ayaa kaafinaysa, khibradda ayaana kafaalad qaadaysa intaas oo idin. Siraaji waa qof aan runtii ku kalsoonahay aqoontiisa iyo waxqabadkiisa iyo waxtarkiisa iyo waay aragnimadiisa iyo khibradiisa iyo ku dhex jirka nidaamka dawladnimo ee uu ku soo jiray. aan leeyahay maamulka Hirshabelle iyo baarlamaanka Hirshabelle aad buu u sii badan yahay, maxaa yeelay mas'uuliyiinta maanta ka noqday gudoonka waxa weeye waa gudoomiyaha labada gudoomiye ku-xigeenba oo ah rag aqoon-yahaniin ah oo rag siyaasiyiin ah, runtii rag wax ku ool way arag ah. runtii waxaan dhihi karnaa wax weyn ayay ka qaban doonaa horumarinta Hirshabelle oo odagu u yahay madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Gudlaawe oo ah runtii madaxweynaha. ugu dambeyntii Siraaji Sheekh Isxaaq Cabdulle gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa ka mahad celiyay kulankan soo dhaweynta ah ee loo sameeyay isaga iyo wafdigiisa.
runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xafladan soo dhaweynta ah ee runtii qiimaha badan ee isdaba joogga ah ee siyaasiyiinta iyo ganacsatada ka soo jeedo ama deegaan doorashadooda ay tahay dowlad goboleedka Hirshabeelle ay la garab taagan yihiin mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Hirshabeelle aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay hadday waxna tusisana waxayna tusinaysaa sida runtii kalsoonida badan ay wasiiradeena iyo xildhibaanadeena ay u garab taagan yihiin maamulkaas dowlad goboleedka Hirshabeelle. Mukhtaar Cabdi Aadan, Ariel TV, magaalada Muqdisho.